uu ku dhaco xuubka gidaarada caloosha uu dhaawaca maadaama maada kiimika uu ka samaysan yahay. Arrintaas marka maxay keenay isticmaalka calooshaada xuubka dhaawace calooshaada xuubka hadday dhaawacdo beri waxay ku keeni doontaa ku sababi doontaa arrintaas ulcer waxa la dhahaa stomach ulcer ku keenay. Stomach ulcer markay ku keento stomach ulcer kaas ay isku bedeli doontaa wax loo yaqaan cell death cellka inuu dhinto. Hadduu mar level cell inuu dhinto gaaro means wuxuu gaaraa cancer uu gaaraa. إلا ما فاهم كرتين حالداس وحنا ما كقبل كرتين لكن مركو مرة ستومك ألسر تبادأ أفكار اللي قلنا قفك تبادأ أفكار على صوف فينا اندسكوبي السلام عليكم كسر دوادا 10 دين امتحان أونلاين كأنا أقول برتين إن إدي سوق بدو ما أنت وحنا كحل دونا موضوع كلا أو كنيني لو يقان ديكلافين أنت بدو حق أنا ديكلافين أما ديكلافين صوديوم كنيني يا سامان درما أنا كهذا الموضوع marka waxaan ka hadlaynaa qodobka koowaad waa maxay diglafeen diglafeen maxaa la lahaa diglafeen waa naqaanaa kaniin oo loo isticmaala waa xanuun baabi'i gaar ahaan loo isticmaalo lafaha marka qofka xanuunayo kale iyo markoo maskaliska xanuunayo murqaha markuu qofka xanuunayo la isticmaala waxaa kaloo la isticmaala markuu qofkan oo jabo ama dhaawac soo gaaro ama problemadaas loo isticmaala marka diglafeen inta badan wuxuu ku dhex jiraa waxaa loo arkaa asoo maadooyin ku dhex jiro كنينيال combination drug combination على سمايا لابد دابو أو لسكو دري مد برستمول ديكلافين لسكو درو كلا كنيني على استعماله كنينيال نوع أساسا يعني على أركا ديكلافين كا مركا ديكلافين وحكوا له يقانا ديكلافين صوديوم والله ما يعرف له يقانا قضب كلامات ديكلافين محوكة سميسية داودان ديكلافين كله يقانا وحلاقة سمايا مادو أو كيميكا على سمايا وحلو يقانا فينايل بيوتازون iyo waxa kale laga sameeyaa maado loo yaqaan phonamic acid iyo waxa kale laga sameeyaa maado loo yaqaan indomethacin saddexdaas maado oo la isku daro laga sameeyaa marka maadooyinkaas la isku keenaa waa la isku daraa marka la isku daro waxa laga sameeyaa wax loo yaqaan diglafeen laga sameeyaa marka diglafeenkaas maadooyinkaas la isku daro waa ka dhalana waa wax laga sameeyo waxyaabo chemical way marka qodobka saddexaad sababta aniga u isticmaalna maxay tahay diglafeen waxa u isticmaalnaa lafahoona xanuuno lafa xanuuna isku arki kartaa kor xanuuna isku arki kartaa korka dhana ku xanuunayo murqihiya ku xanuunaa murq xanuuna isku arki kartaa marka qofkii wuu jabi karaa qofka maadaama bini aadan oo yahay oo jabay dhaawac soo gaaro kale waa u baahnaa kartaa diglafeen waa u baahnaa kartaa waxaa kaloo isticmaalaa xanuun baabi'i guud qofka waxaa xanuuni karo goosa xanuun karo markuu goosa xanuunayo kale ilkaha maadaama ilkaha uu kamid yahay waxyaaba boniska uu kamid yahay cartilage waxyaaba loo yaqaan maadaama uu kamid yahay ilkahaas markuu qofka xanuuna gooska kale xanuuna diglafeen oo xanuun baabi'i u baahnana waxaa kaloo loo isticmaalaa markuu qofka barar jiro kale korkiisa markuu bararan yahay soo bararo xanuun dareema dikaan uu dareema dikaankaas oo yareena marka iyo waxaa kaloo loo isticmaalaa lafaha markuu qofka xanuuna kala baxyada joints labada laf isgalay kala baxyada markuu qofka xanuun waa xoqaan labada laf marka xoqaan xanuun dareema xilligaas xanuunkaas aad dareemayso waxa u baahan tahay diglafeen u baahan tahay iyo cudur waxa jir loo yaqaan gout la dhahayo dhalinyarada banooniga ciyaaro ku dhaca waxa yaraanayo wax loo yaqaan uric acid ka jirka ku yaraanayo uric acid jirka markuu ku yaraado sulka ku soo bararaya marka sulka markuu saan u yaalo dhinacaan geesku ka soo barara waxa loo yaqaan marka gout allah marka sulkaas goodkaas ku dhaco problemkaas ku dhaco xanuun oo keena dhalinyarada banooni markay ciyaarayaan sulka xanuuna inta badan sulka markuu xanuuna xanuun baabi'i ay u baahan yihiin inay qaataan wax loo yaqaan diglafeen xilligaas loo baahdaa marka qodobka afraad side effect ma leeyahay diglafeen ha side effect waa leeyahay dabcan marka side effects maxaa kamid ah qofka mar alla markuu diglafeen isticmaalo iska badiyo wuu mantaga wuxuu kaloo la imaanaa korka dhana xanuunayo la imaanaa madax xanuun joogto la imaanaa maadaama oo diglafeenka jirkiisa ka batay madaxiya warwareerayo duration oo sameynaa yani madaxiya wareeganayo madax xanuunka daawo u yahay laakiin side effect uu leeyahay waxa madaxa wareeraya qofka wuxuu kaloo side effect uu leeyahay appetite lost appetite dhana weyne diglafeenka da iska bayis dhalinyarada banooni ciyaaraan way daalaan way ordaan raashin ma cuni karaan maxaa dhacay intay dhalinyarada yar yihiin ama odayaasha markay weynaadaan oo duqowaan
lafaha xanuuna jointiska xanuuna markay xanuunaan waxay isticmaalaan diglefen badan qofka hadduu diglefen badan qaato wuxuu dareemi doonaa appetite lost appetite-ka way doonaa waxaa kaloo oo diglefenka uu leeyahay calool xanuun waa leeyahay caloosha qofka markuu diglefenka iska badiyo jirkiisa uu ku dhaco xuubka gidaarada caloosha uu dhaawaca maadaama maada kiimika uu ka samaysan yahay arrintaas marka maxay keenay isticmaalka tirada badan diglefenka calooshaada xuubka dhaawace calooshaada xuubka hadday dhaawacdo beri waxay ku keeni doontaa ku sababi doontaa arrintaas ulcer waxa la dhahaa stomach ulcer ku keenay stomach ulcer markay ku keento stomach ulcerkaas ay isku bedeli doontaa wax loo yaqaan cell death cellka inuu dhinto hadduu mar level cell inuu dhinta gaaro idmiinas wuxuu gaaraa cancer uu gaaraa ila ma fahmi kartid xaaladaas waxna ma ka qaban kartid laakiin marka uu maraayo stomach ulcer tubada afka la gelinaa qofka tubada afka laga soo fiirinaya endoscopy bishardi waxaa shardi ah marka isbitaalada markay qofka rabaa inay baaraan isbitaalada waxaa la sameeyaa intuu dhakhtar la kulmin ka hor waxaa laga qoraa prescription wax la dhahayo waxaa la dhahaa daawo ma isticmaashaa sigaar ma isticmaashaa balwad ma leedahay xasaasiyad ma qabtaa waxyaabo oo waxaa jiro notice oo isbitaalada la raba inay qoraan isbitaalada hadda Soomaaliya ma ku arkin laakiin isbitaalada qurbaha waa la isticmaalaa qofka waxaa la weydiiyaa prescriptionka waxyaabahaas u qarsan jirkiisa ku jira laga qoraa waa la note gareynaa si markii oo dhakhtarka la kulmo dhakhtarka wixii uu aqrinaa qofkan jirkiisa oo su'aalo weydiinaa dhiigu qaado waa baara kadib wuxuu sameynaa daawada oo siilaa ka ilaalinaa marka laakiin anaga isbitaalada hadda oo magaalada ku yaalo gaar ahaan kuwa Afrika ku yaalo inta badan prescriptionkaas ma la soo weydiiyo qofka uu soo galaa dhiiga laga qaada dhiiga loo diraa waa la baaraa kadib waxaa leeyahay daawo qaado marka stomach ulcerkaas oo noo keena stomach ulcerkaasna dhibaato badan uu leeyahay side effectgaas uu sameynaa caloosha uu sameynaa marka wuxuu kaloo sababa mar alla markuu jirkaaga ka bato dhagaha waxaa ka maqlay cod dhii waa maqlay markuu kaa bato diglefenka dhagaaga haddaa cod ka maqashid diglefena cunta haas dhihin dhagaa ka jiran tahay anaga dhibka aan qabno waxay tahay daawada side effect markay noo keento dhagaa ka jiran tahay markii lagu dhaho oo dhagaa cod ka dareenta waa baxay dhakhtar dhagaa u tagay dhakhtarka dhagaa hadan daawo dhago ku soo qoraa daawada dhagaa hadan side effect kale leedahay daawo walba aad isticmaalaysa maxay leeyihiin side effect leeyihiin side effect-ga marka uu ku dhibaa marka side effect-gaas uu leeyahay marka dhagta codkaas ka maqlay dhakhtaraa u tagay dhakhtarka hadan wuxuu ku dhahaa dhagta ka jiran tahay marka daawada mar haddaa daawo isticmaalaysa ku tasho side effect ku tasho side effect-gaas maadaama aad la kulantay dhakhtar kale ha aadin oo hadhihin cudurkan laga baar hadhihin marka waxaa kaloo serious uu leeyahay qofka inuu dhiig mantagaayo dadka qaar waxay la kulmaan dhiiga mantagaayo dhiigaas oo mantagay dhiiga haddaa soo mantagtid side effect ka mid ah cuduradan oo waxyaabaha uu ku sababayo diglefenka waay marka qodobka shanaad digniin maxaan kaaga digaa diglefenka wuxuu ku keenaa kow allergy ku keenaa haddaa cuntid diglefen allergy aa qabtid allergy ku kacaa allergy laba nooc waay mid waxaa loo yaqaanaa hypersensitivity oo wuxuu ku dhacaa internal externalka oo inta badan ku dhaca hypersensitivity-ga iyo mid waxaa la dhahayaa jira inflammation oo inside the body ku dhacaya maqaar gudihiis wixii ka hooseeya jirka bini'aadamka ku dhacaa marka nooca adig ku hayo ku xiran tahay allergiga adig ku hayo hypersensitivity marka u badan inta badan dadka Soomaalida waxay u badan yihiin hypersensitivity u badan yihiin hypersensitivity maxaa ku keenay cunna cuntay iyo waxaas ku keenaa marka cunooyinkan oo keenaa waxaa kaloo kamid ah marka diglefenkan waa keenaa hypersensitivity ku keenaa waxaa kaloo jiro stomach ulcer-ka aad sheegaan uu ku keenaa ka taxadir isticmaalkiisa iska yaree ha isku badan waxaa kaloo oo sababa dadka oo qabo high blood pressure dhiigu ku keenaa high blood pressure qabta diglefena cunta dhiiga ka ah iyo waxaa kaloo qayb qaata wadna xanuun odayaasha inta badan isticmaal waa aragteen lafa xanuun rabnaa diglefen si ku dhaay diglefen qaadanayaan qofkan dhiig karo qabi karaa ama wadna xanuun qabi karaa wadna xanuunkuna qayb qaadana waxaa kaloo qayb qaadana cudurada oo beerku oo wax ku dhaco beerku ku dhaco qayb qaadana beerka cuduradiisa si kordhayo waxaa kaloo qayb qaadana dhiig inuu clotting u sameeyo dhiig xinjirta ku badanaa dhiig xinjiro waa badanaa dhiig markuu xinjirta ku bato dhibaato ku keenaa marka diglefenka dhibaatadaas uu leeyahay waxaa kaloo jiro uurka pregnant naagaha qaba uu dareeyahay haddii isticmaala cuniga ka soo halaabaya mid kale
waxaaba loo isticmaalaaba ka hortagga ilmihii in lagala hortago gabadha markay rabta inaysan uur qaadin family planning aa sameynayna ay dhahdo diglefen hadday isticmaasho cunuguu ka hortagaa oo cunugii imaan lahay ama uurkii la qaadi lahaa waa ka hortagaaba marka daawo saas khatar u oo dhibaatadaas iyo saameyntaas kugu leh haddaad tirahdo waa isticmaalaa side effectgaas iyo dhibaatooyinkaas wuu ku gaarsiinaa marka diglefen intaasa kusoo gabagabeynaynaa haddii aad isleedahay waxaa u baahanahay mowduuc oo ama kaniini laga soo hadlo oo aad isleedahay xoogaha dhibaato badan kala kulantay commentiga noogu reeb qaybta faalada noogu reeb daawadaasa kasoo hadli doona insha allah وانا مع سنتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Academy for Science and Technology waxaad ka heli kartaa online courses oo kala ah sida Medical Laboratory Technology, Pharmacology, luqadda Englishka oo saddexda qaybood ah Primary, Intermediate iyo Advanced. waxaa kaloo ka heli doontaa Research Methodology. fadlan hadda la soo xiriir nambarka WhatsApp-ka